أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي محمد صلى الله عليه وسلم waxaa laga soo wariyay inuu yiri man asbaxa minkum aamina fi sirbihi mucaafan fi jasadihi cindahu quuta yawmihi fakannama xizat lahu dunya. taasi oo macnaheedu tahay qofka waagu u bariyo isagiyo nabada caafimaad qaba haystana maalinta wuxuu cunayay waxay ka dhigan tahay adduunka oo dhan inuu haysto. haddaba haddaad inta haysato ada adduunka ugu qanisan, muhiimadu waa inaad ku qanacsanaato waxaad haysato wax yar iyo wax weynba. waxaa laga soo wariyay dadkii wanaagsanaa waayadii hore nin ku noolaa inuu shaqayn jiray nin maalqabeena, nin dayarana uu ahaa balse ku qanacsan noloshiisa. maalin maalmaha kamid ayuu shaqadii ka maqnaaday. kadib waxaa dhacday ninkii maalqabeenkii inuu lacagtii u biiriyay uu isiri malaha lacagtaad siinaysa ayaa ku yar maadaama shaqadiisa jeclaa. ninkii markuu soo noqday muu odhan maxaad lacagta igu biirsay, shaqadiisii buu iska sii watay. waxaa dhacday haddana maalin kale inuu shaqadii ka maqnaado. ninkii ayaa aad u cadhooday, lacagtii ayuu dib uga jaray. ninkii markuu soo noqday muu odhan maxaad lacagta iga jartay, shaqadii buu iska watay. ninkii maalqabeenkii ahaabaa la tacajabay, war maxaad ii weydiin weyday markaan lacagta kuu biiriyay markaan kaa jarayba. wixii markaad iga jartayna markaad ii biirisayna inan baa ii dhasho, risqiisii buu ahaa. markaad iga jirtayna hooday baa dhimato, risqeedii lala noqday buu ahaa. intaba waa ku qanacsanahay. marka inaan ku qanacsana noloshin waa muhiim.